Assalaamu calaykum. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Ku soo dhawow mustaqbal qurux badan. Magacaygu waa Cabduqaadir Cabdiwaaxid. Maalin wanaagsan, habeen wanaagsan, qof walba iyo xilliga u tahayba. Maanta waxaan ka hadli doonaa mowduuc aad xasaasi u ah. Intaanan mowduuca guda gelin, walaal haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir si aad gruubkeena uga mid noqoto. Mahadsanid. mowduuceena wuxuu ka hadli doonaa nimcooyinka aadka u baaxadda weyn ee alla subxaanahu watacaala ina siiye ee aan la soo koobi karin, oo ay ugu horeeyaan diinteenna suuban, dadnimadeenna wanaagsan iyo dalkeenna aadka u quruxda badan oo khayraadka leh. walaal alle wuxuu ina siiyey diin aad u fiican, nasiixo ah. alle wuxuu ugu talagalay in aan ku dhaqanno si aan adduun iyo aakhiro ugu liibaanno. sidoo kale waxaan nahay dad qurux badan, aad u wanaagsan, haysta diinta diimaha ugu wanaagsan, isku dhaqan ah, isku luuqadna ah. sidaasi si la mid ah, alle subxaanahu watacaala wuxuu ina siiyey dal aad u qurux badan, khayraad aad u fara badanna leh, cimilo aad u wanaagsanna leh, beri beerashada ku wanaagsanna leh, iyo bad khayraadkeeda aan la soo koobi karin. sidaasi darteed waan ogsoonnahay xaaladaha ay marayaan waddankeenna, dadkeenna iyo diinteenna. si aan xaaladahaas adag uga baxno, waa in aan dadaalnaa oo aan wax qabsannaa, fadhigana ka kacnaa. sababtoo ah cidna nooma maqna, ceelna nooma qodna, oo macnaheedu tahay cid wax kuu qabanaysaahi ma jirto. marka waa inaan annaga isku tashannaa, oo aan iscaawinnaa, oo aan iscafinnaa, isku naxariisannaa, wax isku qabannaa, wax isku tarnaa, isku duubnaannaa, kuna dhaqannaa diinteenna suuban si aan heer u gaarno. ugu dambayn, alle waxaan ka baryaynaa saddexdaas xaalad, diinteenna iyo dadkeenna iyo dalkeenna, inuu noo hagaajiyo, adduun iyo aakhirana aan noo liibaanno. aamiin. walaal ha iloobin inaad nagu soo biirto.